daawadayaal markaana ku soo dhawaada falanqaynta kulanka aadka u xiisaha badnaa ee la wada sugayay ee dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Tottenham iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kulankan ayaa ka dhacay kulan garoonka kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa Arsenal u jirtay 4 dhibcood. Arsenal ayaa ku jirtay kaalinta afraad, Tottenhamna sanadkan waxay doonaysaa sidoo kale inay kaalintaas afraad soo gasho si Champions League ugu soo baxdo. Arsenal kaliya waxa looga baahnaa inay ku qabato naadiga Tottenham barbardhac ama ay ka badiso si ay u xaqiijiso inay u soo baxdo Champions League sanadka soo socda ee 2022-2023. ciyaartu aad xiisan badneed xamaasad badneed ayaa 20 daqiiqo ugu horeeyay wax gool aan la iska dhalin. 20 daqiiqo markay mareysay waxa penalty u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane. Arsenal ayaa sheegtay in penalty-gaas uu ahaa penalty aad u jilcan. Sidoo kale Arsenal waxa roos laba jaale ka qaatay ciyaaryahanka loo yaqaan Rob Holding. 26 daqiiqo markii jaalihiisa koowaad u dafay 9 daqiiqo kadibna jaalihii labaad ayuu qaatay Rob Holding ciyaartan uu ka baxay. Waxa la arkay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo aad uga careysan habdhaqanka referee-ga kulankaas. 17 daqiiqo markii mareysay Harry Kane baa goolkii labaad dhaliyay, saasaan lagu kala nastay qaybtii koobaad ee ciyaarta 2-0 kooxda Tottenham oo ku hogaaminaysa. markii la isku soo noqday wax badan ma socon 2 daqiiqo markay socotayba goolkii saddexaad Tottenham waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka qaab ciyaareedkiisa aad ku fiican yahay sanadkan oo lagu magacaabo Son. ciyaarta oo socoto waxay ku soo ilaatay 9 daqiiqo loogu talagalay eber 2 daqiiqo lagu darin waxba iskama sii bedelin 3-0 kooxda Tottenham ayaa ku adkaatay kulankan. Tottenham ayaa hadda leh 65 dhibcood, hadda Arsenal ay leedahay 66 dhibcood. labada kooxood waxa u dhaxay hal dhibic. horyaalkan waxa ka haray laba kulan. Arsenal markii la fiirsho kulamada u haray waa Newcastle oo isniinta la ciyaari doonto iyo kooxda Everton oo garoonka Arsenal soo booqan doonto kulanka ugu dambeeyay horyaalka. kooxda Tottenham ayaa la filayaa inay haysato kulamo aad ugu jilcan kuwa Arsenal. Tottenham ayaa garoonkeeda kula ciyaari doonta kooxda Burnley maalinta Axadda ah, halka kulanka ugu dambeeyay horyaalka ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Norwich oo mar hore xaqiijisay inay horyaalka hartay ayadoon ku dhameystay kaalinta ugu hooseysa horyaalka. Tottenham ayaa la filayaa 2000 inay badiso, balse Arsenal ma badi doontaa kulamada Newcastle iyo sidoo kale kulanka ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Everton. fadlan channelka saar subscribe haddii aadan hore u saarin, like gare ee la wadaag asxaabtaada. fadlan ku tixnaaw channelka si aad uga bogato wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay, natiijooyinka kulamada horyaalada qaaradda Yurub, sidoo kale kulamada soo socda falanqayntooda iyo suuqa kale iibsiga wixii ka dhaca.